السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti habboon daawadayaal, maanta barnaamijkeena waxaan ku eegi doonaa wargelinta Itoobiya ee ku haysa Soomaaliya, gaar ahaan hubka waddanka kusoo qulqulaya soo geynayso iyo dhanka arrimaha dibadda iyadoo walba ku haysay. Sidoo kale waxay ka leedahay ujeedooyinka wargelinta ay ku hayso Itoobiya Soomaaliya, gaar ahaan dhanka gudaha xuduudaha ku hayso, iyo sidoo kale hubkaas ay soo geynayso waddanka inuu gacanta maamul-goboleedyada galo iyo inuu galo gacanta shacabka kee way fiican tahay. Aragtida dadweynaha iyo aragtida saxaabiga ee doonayada sidoo kale arrimaha dibadda meelo marayo shirkii oo dib dambe loogu bilaasay kulankii saddexaad ayaanu ku tilmaami doonaa. Warbaahinta Warshada Soomaali TV kala soco walaal warbixinno dhaqanka arrimaha bulshada iyo xaalad kasta oo markaa taagan. Fadlan si aad barnaamijyada la socotid xukumo oo ku xidhnow laguna soo dir haddaadan nala joogin qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aan ku leenahay. Itoobiya fargelinta ay ka leedahay gudaha ay ku leedahay waddanka Soomaaliya, gaar ahaan hubka sanadihii ugu dambeeyay soo gelaya waddanka, waxay ka leedahay ujeedooyin dhowr ah. Ujeedada ugu weyn waxa weeye in Soomaalidu ay isku leyso, hadday tahay maamul goboleed iyo hadday tahay federaalba ama shacabkaba, iyadoo dagaal sokeeye in ay Soomaalidu gasho ayay doonaysaa oo ay Soomaalida ku abuuro hubkaasi, maadaama hubku yahay wax halis ah oo amniga iyo nafta bini'aadamka khatar ku ah ayay uga jeedaa, maadaama ay u aragto maamul goboleedyada saaxiib weyn, sidoo kale ay samaysankoodana ay qaar ka dambeysayba. Sidoo kale aragtida dadku ay ka qabaan in hubkaasi uu galo maamul goboleedka gacanta u galo iyo inuu shacabka u galo, dadka badankooda waxay qabaan ama ay Soomaalidu aaminsan tahay, maadaama hubkaasi waddanka lagu khalkhalinayo yahay inuu gacanta shacabka galo oo shacabku ay biliqaystaan. Hase ahaatee khatarta ka dhalanaysa ma oga, waxaana wanaagsan hubkaasi maadaama doon ha soo gale, maadaama hadduu waddanka soo galay inuu gacanta maamul goboleedka ama federaal ha ahaatee gacan maamul hadduu galo hubkaasi khasaarihiisu waa yaranayaa, waa hun nidaamsan buu noqonayaa oo qolo keliya haysto ama nidaam xukun haysto. Laakiin hadduu shacabka u galo wuxuu noqonayaa beyga Soomaalida oo dhan buu ku faafayaa, dagaalada Soomaalida har iyo habeen islaynaysa ayuu sii sababaya oo kasii qayb qaadanayaa. Sidoo kale markuu dagaalku sababo dagaalkana wax kasta oo xun ayaa laga bartaa yuu reebaa. Arrimaha dhanka dibadda haddaynu eegno, shirkii ama kulankii saddexaad ayaa loo balansan yahay iyadana sida uu sheegay Turkiga oo dhexdhexaadinaya Itoobiya iyo Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay kulankii saddexaad ayaa loo balansan yahay iyadana uu inta aan kulanka la gelin kulanka fool oo toos ayaa ka saddexaad noqonayaa. Marka waxay sheegayaan inay yihiin uu sheegayaa Turkigu in wax la isla sii meel dhigo, iyadoo taasna feejignaanteeda la rabo in laga yeesho madaxda Soomaalida ka yeelato.